runtii caawa farxad ayay ii tahay oo aan la soo koobi karin oo ay isu bahaysteen dhowr arrimood. midda koowaad oo ah soo dhoweyntii diiraneyd ay ii sameeyeen walaalahay galmudug, gaar ahaan magaalo madaxdeeda dhuusmareeb. runtii waa farxad aan la soo koobi karin oo dhiiro gelisay, madaxana ii furtay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guulaysanay arrimihii aan halkan u imid iyo dhammaan wadatashyadii na dhex maray anigii iyo walaalkay madaxweyne axmed kaariye qoorqoor. arrimahaas oo si wanaagsan oo kal iyo laab ah noogu soo gabagaboobay halkan magaaladan dhuusamareeb. arrintaas oo ka dhalatay halkan ayaa waxaan rabaa inaan u sheego jawaabta ka soo bixi doonto inay farxad u noqon doonto dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan shacabka galmudug. intaa markaan kaga baxo, saad la socotiin galmudug caqabado yaryar ayaa qabsaday isbuucyadii u dambeeyey, taasoo ay keeneen kooxo ama gruub aan ka shaqayn nabadda. runtiina aad ayaan uga xumahay in galmudug lagu dhex arko dad carqalad ku ah midnimada, dowladnimada iyo jiritaanka galmudug. haddaan nahay dowladda federaalka, waxaan naga go'an cid kasta oo isku daydo oo galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii, kana hor timaado midnimada iyo dowladnimada galmudug, inaan gacan bir ah ku qabanno. dowladda Soomaaliyeed, dowladda federaalka ma aqbalayso, mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda Soomaaliya. waa muhiim inuu caqliga shaqeeyo, waa muhiim inaan tashanno. 30 sano kadib ma yeelayno qof inuu qori qaato, isku dayo inuu ummad hore u socoto hor istaago, iskuna dayo inuu caqabad ku noqdo jiritaanka ummad Soomaaliyeed ee hore u socoto. taa hadda halkan kaga gudbo, waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne axmed kaariye qoorqoor oo sheegay kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka, taasoo uu ii qabtay 3 maalmood gudahood inay ku soo dhammaystirmayaan hadduu alla subxaana watacaala idmo. waa ceeb, waad og tihiin Soomaali iyo ajnabiba maalin kasta waxay nagu hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ajnabigaba aaway doorashadii, halkeed u socotiin, war maxaad u qaban la'dihiin. laakiin caawa farxaddaas Soomaaliya iyo adduunkaba waxaa u soo hoyey madaxweyne axmed kaariye qoorqoor. waxaan sidoo kale rabaa halkanna kaga codsanayaa walaalahay 4 dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda, waa hadday u nahayaan shacabka Soomaaliyeed. aniga laftirkayga qadyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay allow ka soo saar. marka insha allah waa idin sugaynaa dhammaan dowlad goboleedyada. shacabka Soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in doorashada la soo gabagabeeyo sida lagu heshiiyeyna intuusan dhammaanin sanadka cusub la soo dhammaystiro aqalka hoose ama golaha shacabka hadduu alla subxaana watacaala idmo. waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin. gaar ahaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo gobollada waaberi ee galmudug oo runtii cawada intiina badan madaxa u furan, laakiin aniga qalbiga ii furay. marka waa mahadsantihiin.